إلهي قلبك هيدين قبل شيء كبر رنتي فولي هذا أورمو إن أنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسر هذا برنامج جارة أما ورئيس جارة أو أن لي لنا إنه عمر أمان قاسم يوليبا ولكن وإستجنا كم إذا كوميونيتيجا قومية أورمدا كنا المجالات النيروبي عاصمة ودن كينيا لبدن موادين وده شيء قومية أورمدا waxay ka mid yihiin dadka qoomiyadaasi ee ku nool magaalada Nairobi waxa ayna si dhow ula socdeen waxyaabihii waayadii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay dalka Ethiopia gaar ahaan dhulka Oromia waxaan ku bilaabayaa dhinacayga bidix waxa fadhiya Umar marka hore ku soo dhawow SSTV oo xafiiskada nagu soo booqateen marka labaad bal waxaad warbixin naga siisaa waxyaabahan haatan ka dhacay Ethiopia gaar ahaan kacdoonadan cusub iyo dilkii loo geystay fanaankii caanka ahaa Hajaalo horta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaalida dhasha Soomaalida oo meel walba joogto aan hagan ka salaami lahaa fursadan aad iga siiseen horta miidiyadan magaca ummadda Soomaalida iyo magaciinaba oo shaqaalaha meesha ka shaqeeya aad baad u maasantiin garab baadna siiseen garabnimadii oo Soomaali iyo Oromo isku leedahay baad maanta muujiseen marka anoo ka socda bulshada Oromada oo magaalada Nairobi aan leeyahay ood maasantihiin marka horta siyaasadan oo wadanka Ethiopia laba arrin baa lagu dhisay si kasto oo hadda anaga mudaarad iyo gobolnimo doonka aan wadayno oo 83 qabiil baa ka tirsan ma Oromo kaliya marka siyaasadda Ethiopia dhismaha oo markii hore lagu dhisay kan waxad ku dilayay inuu ku noolaado iyo kan kalena inuu dhinto oo dhiigiisa wadanka ku dhiso dimuqraadi iyo waxa ay maaragtay ay yaqaanaan ma laha marka ninka Hajaalo Hundessa oo isbedelkii oo dawladda Ethiopia oo 2015 iyo 2016 iyo 17 socday marka isbedelkaas oo ninka oo si fiican ka shaqeeyay oo fanaan buu Hajaalo Hundessa la raha Hajaalo Hundessa oo ku dhashay gobolka Oromia oo loo yaqaano oo Shawa oo Ambo oo ku dhashay ninkan fanaan weyn oo haddana ninka siyaasadda oo si fiican u la socduha 8 sano habsi ku jiray markii hore TPLF isagoo ardaya isagoo secondary ku jiro 8 sano habsi ku jiray habsiga oo ku tirsan Ambo meeshuu ku dhashay meeshuu ka soo jeedo Ambo habsiga mu ka soo baxay wuxuu imaaday caasimada Addis Ababa iyo Finfinne uu imaaday halkaas uu ku bilaabay halgankii marka maalintii oo ma aragtay dadkii soo qaxay halgankii qeyro ay waday qeyro waday isagoo fanaana maalin waxa la yiri dadkan walaalaha oo mar walba isla noolaa oo isguursadeen oo hooyo Oromo waxaad ka helaysaa dhinaca walaaleena oo Soomaalida waxaad ka helaysaa hooyo oo 10 iyaal korinayso oo Oromo ka dhaleen dhinaca Oromadana waxaad arkaysaa 10 oo gabadh oo Soomaaliya ilmo Oromo ka dhaleen ay korinayso dadkaas isku direen marka dadkii in soo dajino oo xaflad baa la qabtay xafladii la qabtay ninkii maalintii TPLF ay nahayn maalintaas waa ma faanta live baa la soo daayay ka bacdi stage ka markuu ka dagay in dilaan bay rabeen nimankan hadda isbedelka keenay naftiisa badbaadiyay ninkaas Hajaalo Hundessa maxaa ku xigtay socodkiisu u socdo shir bay galeen maxaa noo tala horta hukunka shacab waay maaha ninkii talada fadhiya maaha ninkii wadanka president ahaa maaha ninkii minister ahaa wadanka waxa maamula shacab baa maamula kii wax bartay iyo kii waxba baranin oo qoy joogo maaragtay miiga joogaba markaas isbedelkii waa imaaday shacabkii baa iri marka ilaan mudaaraadka shacab baa watay TPLF uu ku laabtay meeshuu ka imaaday ka bacdi maxaa noo tala raggana loo dhiibaa la yiri intay maaragtay oo doorashada ay gaarayso meelana gaarsiiyaan aan ka talaabano oo gumeesigan doorashadana nin walba sidii wadanimada isaga muujinaya qofkii doora lahaa haddii oo laga dhisay dimuqraadi Orona marka dambe nimanka markii loo dhiibay oo la joogay horta markii ugu horeysay wax fiican bay sameeyeen oo rajaan anaguna yeelanay waayo dadkii habsiga ku jira albaabka ay ka fureen talabaad wixii wadanka ka tagay wixii dhintay way dhinteen
wixii wadanka ka tagay oo siddeetan iyo saddexda qabiilba anu maaha oromo kali inaan ka hadlama rabin marka soomaali oo anaga oromo dadka afrikaanka jooga iyo wixii dibada joogaba way soo qulquleen ilaan iyagaa maaragtay kaalaya baa la yidhi maaragtay waa kaas wadahadal baan maaragtay dimuqraati aan ku keenina run baa loo maleeyey saad u og tahay OLF oo oromo ka tirsan oromo si kasta oo maaragtay party oo kala duwan ay leeyihiin laakiin fikradooda isku mid waaye nin walba garashadiisa waay siyaasadda waa garashado maaha qabiil maaha waxaad taageerisid quruxda maaha waxaad taageerisid marka dambe soomaalina way imaadeen oromona way imaadeen wadanka xafiis inay furtaan oo si oo xaqdaraa ina maaragtay u mudaaraadaan bay rabeen oo dowladda la halgamaan ka bacdi sanad iyoha marka la marayo horta xafiisyada ina la xidho oo warqadii oo license la siiyey ina laga boobo oo wixii taageeraa meel walba marka erkaan ina maaragtay oo gacan ku dhigtaan bay bilaabeen ka bacdi haddii say u socoto daraad bay soo gaartay daraad habeenimo 9:00 iyo bar oo habeenimo 3 saac iyo bar oo fiidnimo ninkii aa la dilay abad bay ku dhufteen ninkii waa la qaaday hospitaal la geeyey 5 saac markay noqotay dhimashada ninkii aa la soo sheegay hiligaas oo qabiilka Ethiopia ku nool wixii xaq taageeraya oo meel walba way muujiyeen dareenkooda way muujiyeen marka horta Ethiopia su'aal kasta aad weydiisid oo wadanimo oo siyaasad ahaan jawaabtoodu waa habad ma yaqaanaan inay dhageystaan shacabkooda anu wahay meesha state house u fadhiyaan baan garawaay cumarow halkaan kaa dhex galo hajaalu yaa dilay hajaalu dowladda dishay mar ma lahan waxa dowladda dishay hukuumadda dishay hadday doonaan qof ay soo diraan iyaga yaqaan gaandhiglaha dadka qaar waxay leeyihiin qoomiyadda axmaarada dilka ka dambeysay qaar waxay leeyihiin xukuumadda ra-iisul wasaare abiy baa ka dambeysay idinka qoomiyadda oromada haddaad tihiin yaad u haysataan in uu ka dambeeyey dilka hajaalo hundhiisa okay hadda oo isbedelka imaaday markuu prime ministerkii uu wadada ka baxay oo isbedelkii reformiga loo socday wadada ka baxay wadada ka bahitaankiisa waxa hadda isaga la jooga waa amhaarka kaliya waa Ethiopia waxa ka tirsan 8 qabiil 8 ka qabiil hal qabiil marka laga reebo 8 qabiil baa meesha joogta soo maahan ma oran kartid 8 ka qabiil baa qaldan soo ad garatama marka abashida horta ninka week ka hor toddobaad ka hor baa maaragtay interview wareysi la yeeshay oo eemena marka uu yiri oo dhagaxa ka dhisan oo Addis Ababa ku yaala oo mililika uu yiri faraskii oo baalkii la dhigay waa la soo haday ninkii laga hadaan aan naqaan anaga dabal baa loo yaqaanay oo Addis Ababa meel ka tirsan marka wada hadal uu tagay ninkaas uu yiri faraskan aad saaran tahay maaragtay anagu maaragtay wadan karna adiga ma wadan kartid faraska mililik baa saaran faraska oo hadda dhagaxa meesha ka dhisan xasuusahan faras ma lahan iyaga waa taalo dameer buu soo fuulay markuu imanayay markuu dhinaca habashida ka imanayay dameer buu saarnaa ninka mililik dameer buu soo fuulay kadib taalo farasa looga dhisay sababa faraskaas oroma iskale marka hajaalo wuxuu yiri faraskan oroma iskale ninkana dameer buu iskale baalkayna la dhagahina la dumiyo faraskiina oroma ina loo iliyo hadalka waa hajaalo waxa lagu dilay marka ama amhara disho ama abiya dilo abiy hadda waxa la taagan oo gacanta bidixda waa abashida abi waxaan ognahay inuu ahaa nin qoomiyadda oromada ka dhex yimid oo xisbigii OBDO ku yimid markii xukunka uu imanayay oromada iyo Soomaalidu waxay ka mid ahaayeen qoomiyadaha aad loo cadaadiyay Ethiopia labadii qarni ee ugu dambeysay aan xukun soo marin la cadaadinayay bay ka mid ahaayeen Abiy Ahmed markuu yimid waxaa la yiri alalaha meesha oroma qabsatay oo qoomiyadda oromada hadda qabsatay oo Tigray iyo Axmaarada hadda waa laga takhalusaya siyaasadii oromada ee noocaas ku wajahnayd waxaan ogeyn markuu Jawhar Addis Ababa imanayay madaxweynaha xilligaas ee gobolka oromada ninka la yiraahdo Lama Magarsa iyo Abiy Ahmed team badan ba isku siyaasadaha xitaa Daawud Ibsi oo ahaa OLF siyaasadda oromada markaa way midaysneed xaggee ku burburtay hadafkii oromada ee noocaas ahaa ee Abiy Ahmed lagu doortay ee uu xukunka ku tagay xaguu kaga leex okay horta waxaan hadda oo hagan ka sahiraba Abiy lama dooranin
kumeel gaar buu ahaa kumeel gaar buu ahaa wuxuu ku dhashay oo gobolka oromia meel la yidhahda jima marka gumaysiga amhaarka horta wixii ay noo galeen iyo wixii shacabka etoobiya dhan loo galay ku sameeyeen la ilaawi maayo xasuus qoran oo qoran oo meel taalla oo runa waxa iyagu qoreen maaha say iyagu leeyihiin minilik waa geesi Haile Selassie waa geesi xaggeyga geesi maaha daayara taw ka hooseeyaan marka ninkan meeshaasuu ku dhashay anu horta waxaan ka hadli karo oo meesha taallo maxaa waaye sidii qofka etoobiya ku dhashay aruuskii oo aabihii markii wayadii abihii guursanaya anuma joogin taama dhexgali karo ma oran karo ninkaas qabiilkaasuu ahaa afkiisaa laga maqlo abihii waa la weydiiyey markuu uu galay state house waa la weydiiyey meeshuu kasoo jeeda iyo qabiilkiisa jimaan kasoo jeedaa qabiilkan kasoo jeeda doorashada kadib aani sheega saasoo cad buu yidhi laakiin marka waxaan aad ka maarmi karin hebel iduu ka dhashay waa xaqdaro waayo ma oran kartid idaasuu ka dhashay anaa yaqaan si la sheegayay oo social mediada la sheegayay ninka inuu ka dhashay amahar marka nimbo abtigiisa marka hooyadii waa axmaara ha say sheegayaan social mediada waaya social mediada iyo dhabtii lama hayo waayo xaqidii isagaa laga rabay isagana waa tii ballanta dhigay wuxuu yidhi doorashada kadib aan sheegaa isagoo shacabka etoobiya maamuli rabo isagoo prime minister markii la weydiiy xaq bay ku leeyihin inaa weydiiyaan moogta inuu ka jawaabona uu ku qasbaya iyaad maamuli dhagaha maaha dad baad maamulaysaa soo maaha idaad ka sheegtay haddii idaad ka socoto iyo idaad ka dhalatay haddaad sheegi weydo maamulkaadi maamulaysa maxay ka tahay an waxaan gara waayo waa taas dad baad maamulaysaa dad baa ku dooran doona hiligaas waxaan anu gartay sidii qofka meesha ku dhashay sidii siyaasadda oo waqti dheer aan ku jiray maxaa la rahaa uleyskii hore baan nagu soo elinayaa doorasho ama doorataan ama ay daysaan taasay muujinaysaa cadaadiskii hore aan soo elinayaa waxba tarimaysaan amal wa ama doorataan hadda marka siyaasadda abi uu ku shaqaynaya ma waxaa idin muuqata inay tahay siyaasadda axmaarada ha maram kama jiro waayo horta waxa adaa meesha taallo anu maanta been ma sheegi karo mana sheegi doono waayo anu muslim baan ahaa qabri baa isugaya idna been ku sheegi maayo iska daa dadka etoobiya hal wadan aan isku leenahay iska dhaafo dadka shisheeye africa wadankeyga hooyo iyo calamkaba inaan been ka sheega ma rabi waayo idi lama galaysa qabriga keligee baan galayaa runaanaan ku halgamaynaa runaan ku dhimanaynaa marka ninkani guud ahaanba uu ka leexday siyaasaddii oromada waxaa muujinaysa waxaan kugu adeynayaa state house markuu galay state house gudihiisa wuxuu dhisay dhaga xasuusa oo minilik iyo Haile Selassie markaasuu yidhi qofka etoobiya ku dhashay meeshuu doonaa ku dhasho qabiil doonaa kasoo jeedo ninkii ku faamaya raggii hore qalad ay naga galeen isagaa qaldan uu yidhi ama waa ha garto ama ha gara waayo markuu state house ka yimid abi axmed wuxuu dhisay laba taallo oo minilik iyo Haile Selassie kala leeyihiin wuxuu ka bixiyey 120 milyan oo American dollar 120 milyan anu waxaan oran lahaa 120 milyan dadka dayarta waa taqaanaa halgamayaasha oromada muxuu dhisay wuxuu dhisay male halgayaasha oromada wuxuu dhisay habsi cusub way aan ka nimaadno bal arrintaa waan fahanay marka halkan naga daawanaya qoomiyadda oromada iyo qoomiyadda soomaalida ba maaragtay isugu jira waxaan u malayn arrintaa waa fahmeen hadda hajaal waa la dilay warar baa sheegaya ilaa xalay soo baxayay in ay xidhxidhan yihiin mas-uuliyiin waaweyn oo ugu horeeya jawhar maxamed oo aan ognahay inuu kacdoonkan aabbiyo hooyaba u ahaa siyaasiyiin kaloo badanna ay xidhan yihiin sida bakele oo maaragtay o f c ku-xigeen oo ahaa arrimaha maxaa ka jira arrimaha waxaa ka jira hajaalo markii la dilay waxaa la rabay in la geeyo gobolku kasoo jeedo hajaalo hajaalo gobolkiisa uma dagaalamin gobolkiisa uma halgamin gobolkiisa maaha wuxuu ka heesi jiray 83 qabiil oo Ethiopia ku nool 83 Ethiopia ku nool oo qabiila qoomiyadooda all Ethiopian maaragtay oo citizen uu ka heesay meeshuu ka heesi jirana waa caasimadii bartankii meeshii oo han urteena lagu aasay oo Addis Ababa uu ku heesi jiray soo maahan hajaal wuxuu ku geeriyooday isagoo wada toosan ku jiro xaq waa moogta xaqaaga inaa u doodisid way ku bannaan tahay marka bartanka magaalada ina lagu aasaarabna inaga
markaasay dawladdu waxay tiri horta isbaar la sameynaya ma lahan ninkii waa la dilay waxaad rabteen in Addis Ababa lagu aaso Addis Ababa lagu aaso markaa dawladdu horta ninkan in la soo baaro oo wixii oo imaaday security-ga inay sheegaan ina soo adeeyaan baa la rabay si degdeg ah isbitaalka ka soo bixiyeen kabacdi waxa lagu waday ambo haajalu isagoo nool buu bartanka Ethiopia wadanka oo Ethiopia oo caasimada imaaday isagoo nool imaaday meedka inaan u geeno garna maaha horta xaqna maaha marka dambe si wax yar markii la socday jawaar baa gaariga ka dagay isagoo oo kobalaana gaariga hortiisu soo istaagay wuxuu yiri allay dilo allay igu dara ninkan haddii kale Addis Ababa lagu aaso waa isku raaceen waa la soo eliyey asaba ma lagu soo eliyey waxa la imaaday meel hidiya dhaqana oo guri oromada ka dhiseen oo ku yaala boole markii ay imaadeen sidii oo gabagabadii oo ninkan oo lagu shaqeyn lahaa bay hooga tashanayeen odaal baa imaaday abaagadaagii odaashii duqa oo Ethiopia marka imaadeen ay ka qayb galeen oo Soomaali ka mid yihiin marka dambe si u joogaan special force oo Abiy 2 sano gudaheeda oo sigaar u tababaray oo Republican loo yaqaano oo koofiya guduuda baa ku wareegay guriga idbas waal way ka maqli waayeen liyuhayl oo Oromia oo ka tirsan abad bay isku fureen laba meesha ku dhimatay horta saal sheegay anu meesha ma joogin ilaa wixii social media da aad ka heshid baad ma arkay oo la socon karta kabacdi abadi markay bilaabatay nimankii sigaar u tababarsan yihiin meedkiina markaa meeshu yaala nimanka la soo diro waa federal iyo qoomiyada Oromada isma lahan marka dambe nimankii wuxuu yiri lagu aasimayo ambo manad geen doono fikradeena kuma jirto jawar iyo Oromadan kabacdi jawaabtii waxay noqotay in iyaga habsi la geeyo marka ugu horeysay Jawar Muhammad iyo ninkii loo yaqaanay isbeddelka dhan oo Ethiopia ka imaaday inta Ilaahay ka sokeysay waxa ku higay Bakala Garba waxa ku higay Hamza Borana oo idaacad buu leeyahay waa taqaanin baan u maleeyaa wuxuu degan yahay Saudi Arabia kabacdi saddexda markii oo gaari lagu ritay oo meedkiina la soo saaray niman kala ku higay ilama adii halay 10 habeenimo intii oo internetka la goonin ka hor 35 baa habsi ku jirto anu hadda maskayda ku jirtaa anagu waan badanahay horta badida aan badanahay humaan kaba qabo Ilaahay baa ku shaqalay taas Ilaahay baa ku shaqalay badidaas darteed laga yaabaa inay ka badan yihiin 35 taas dhimashada waxa la sheegayaa 96 sagaashan ilaa hadda ilaa hiligii internetka la jarayo ajiib waxa uu Cumar sheegay in marka meydka in qoomiyadda Oromadu ay jeclayd in lagu aaso magaalada Addis Ababa maadaama uu ahaa nin halgamaa ah oo maaragtay ka soo tagay gobolkii uu ku dhashay ama magaalada Ambo ka soo tagay Addis Ababa iyo caasimadii yimid halkaana halgankiisa ka waday rabayna in maaragtay dadka Ethiopiaanka oo dhan xuquuqdooda uu u dagaalamo sidaa daraadeed Addis Ababa maadaama lagu dilay isaguna Addis Ababa uu bayskiisu ahaa in Addis Ababa lagu aasinay qoomiyaddu rabtay ha yeeshee xukuumaddu in ay tiri waxaan ku celinaynaa Ambo oo ah meeshii uu ku dhashay ama maaragtay uu asal ahaan ka soo jeeday sidaa daraadeed in arrintaasi markii meydkii la soo saaray baabuurkii la saaray in Jawhar Maxamed hogaamiyaha dhalinyarada qoomiyaddaasi oo ah nin aad u garanaysaan inuu is hortaagay oo uu yiri meydka lagama qaadayo halkan haddaad rabtaan inaad halkan dhaafisaan anigana igu dara idila sidaa daraadeed in dib loo soo celiyay meydkii meel ku taal xaafadda boole oo ay qoomiyaddu Oromadu ka samaysay aqal weyn ama maaragtay waab weyn oo la rabay in halkaasi looga arinsado meydkan iyo qaabkii loo aasi lahaa iyo hawlaha kala gedisan ee dilkiisa la xidhiidha in la keenay meydkii oo halkaa yaala oo madaxdii kala duwaneeda Oromada iyo Jawhar iyo cid walba Oromada madaxdeeda halkaa joogaan in ay yimideen ciidamo si khaas u tababaran oo uu Abiy Ahmed 2 sano ugu dambeysay uu si khaas u tababaray oo koofiyad guduuda kadibna ay halkii ay iswarka ka qabteen gurigii iyo dadkii ku jirayba kadibna halka ay rasaasi ka bilaabatay dad halkaas ku dhinteen kadibna raggii madaxda ahaa qaar kamida sida Jawhar Maxamed Miraara Gudina Bakale iyo maaragtay rag kale oo caana halkaas laga qabtay gaari lagu ritay saasina ay kula tageen kadibna internetka la jaray haddana wararkan laga soo gaaraya wuxuu yiri ugu yaraan 30 iyo dhowr qof ayaa xidhan dhowr iyo 90 qofna
waa la dilay oo maaragtay aakhiray aadeen allah u naxariisto sidaasaad yuu warkaaga nuxurkiisu yahay sooma walaal ha waayahay qowmiyaddii oromada marka ay falalkaasi dhaceen maxaa u talaaqee dhalinyaradii khayro iyo guud ahaanba qowmiyadda oromada waxaan arkaynay meelo badan oo adduun ka mid in banaanbaxyo ka dhacayeen jawhar maxamed inba kalena la dilay jawhar la xidhan yahay maxay oromo oga dhigan tahay wallahi taas waa niyo jab oo halgankii aan soo sameynaynay horta gumeysiga Ethiopia awoshana maaragtay ku dhinteen ay ku noolaan jireen abahiya ku higay anaa ku higay hadda wiil baa meesha ii jooga oo 22 jira isagii baa maaragtay hadda la leenaya su'aasha taas waa marka meesha ay ka bilaabatay ee meesha joogto markaa fiirisid alwalhuma laga qaadaa hadda horta way muujiyeen dareenkii oo ninkii la dilay iyo dareenka siyaasadda ay wadada ka baxday way muujiyeen waad u jeediin waad aragtiin social media-ga waxa ka socdo waxaan arkayay maxaa la dhahaa abiy oo ururkii hore burburiyey urur cusub isagoo idilana tashanin horta siyaasadda keligaa ma lihid wadankana keligaa ma lihid keligaa kuma dhalanin aad baad umahadsan tahay cumarow waan kugu soo laaban doonaa xagga walaalkeen baan u kacaya bal fariintaada si kooban noola wadaag adoo magacaaga ku bilaabay እኔ ገመቹ አበበ እባላለሁኝ የምናገረው ነገር አጫሉ የሞተው አልሞተም አለ አጫሉ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሁሉ ነው አጫሉ ያለፈው አጫሉ ማለት የኢትዮጵያ ጀግና ነው አጫሉ ማለት አዋግቶ የሚያዋጋ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ጀግናችን ነው ነገም እንኳን አገራችን ቢወረር ህዝባችንን የሚያነሳሳና የሚያታግል የቁርጥ ቀን ልጅ ነው አጫሉ አጫሉ ከሁላችንም ላይ ነው የሞተው እንረሳም ይህን ጉዳይ አንረሳም እኔም አይደለም እስከ 100 ፋሚሊ ሁሉ ይሄን ነገር አንረሳም ለትውልድ የምናሳልፈው ነው ስለዚህ አጫሉ የዲሞክራሲ ዘበኛ የሐቅ ዘበኛ የሐቅ ታጋይ የሐቅ የኢትዮጵያ ልጅ የሐቅ የኦሮሞ ልጅ አጫሉ ምን ብዬ ልገለጸው ስለ አጫሉ ማለት እኮ የአጫሉ ልብ እንደዚህ አይነት ሰው በመቶ ዓመትም አይፈጠርም ያጣነው ትልቅ ሰው ጀግናችንን ያጣነውና በጣም ነው ማዝነው የኢትዮጵያ ህዝቦችን ማስተላልፈው ሁላችንም ለዲሞክራሲ ዘብ መቆም አለብን ማንንም እዛች ምድር ላይ ማንንም ዘሬ በታች ማንንም ዘሬ በላይ ሆኖ መቀጠል የለበትም ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ሆነን በማንነታችን ተከብረን በማንነታችን በክልላችን ተከብረን ክልላችንን አዘን ራሳችንን አዘን ያችን ሀገር የወደፊት ዕጣ ማሳለፍ አለብን ስለዚህ የታሰረው ወንድማችን ጆሃር መሐመድ በቀለ ገርባም ማናቸውም የታሰሩት የኦሮሞ ልጆች ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ላይ ሆነን መቃወምና በአስቸኳይ እንዲፈቱልን እንፈልጋለን ሁለተኛ አገራችን ውስጥ እየተደረገ ያለው ግድያ መቆም አለበት የኛ እናቶች ሲያሳድጉን አይስክሬም ልጠው አይደለም ወይም አይስክሬም እየላሱ አይደለም እንጨት ሰብረው ተቸግረው ኩበት ሸጠው ነው የሚያሳድጉን እኛ በጣሊያን ጊዜም አባቶቻችን ተዋክተው ያችን ሀገር እንዴት እንዳስከበሩ ታሪክ የሚያውቃልና ያውቃለን ፈረሶቻችን የሚያውቃሉ እንኳን ሰው ልጅ ቀርቶ ጠላትም ሲወረን ምን ዋጋና ምን ሞተው እኛ ነን አገር ውስጥም ደግሞ ምን ገደለው እኛ ነን إلهي قلبك هيدين قبل شيء كبر فهمتي فولي كفر هذا oromo inaan maaragtay aforomo aan qolo intii waa arin maaragtay murugadeeda leh yarkan walaalkan muusan luqada Soomaaliga ma yaqaano waa runtii aad buu xamaasadooday Umarow walaal bal waxaad luqada aforomada
والفرين وقدر شعبك أورمضة يجودهم بيتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة أورمو كدنيا قوتو رجرو كبيا جرو كغرتي مقالا نيروبي تنكيس اللي جرو أكنا متوكو أكبكتا أورمو توكو أكنا مغرتي قبصو تنكيس قودة قدى قبو akkanama Oromoorraa dhalatee akkanama akka Oromootti guddate akkanama akka Oromootti qabsaa'etti hiree naa kennanii obboleeyyan kiyya ijoollee Somaalee warra Somaalee irraa gartee magaalaa kana keessa waliin jiran warra miidiyaa qabu warra kanatu gartee afaan kanaan wal qabatee ani jiruu kiyya kabaqaa keessatti afaan Somaalee afaan obboleeyyan kiyya afaan ummata Somaalee warra waliin qabsooynee as geenne warra wajjin gabrummaa keessa turre warra borullee biyya bilisoomte irratti waliin jiraachuu barbaannu irraa miidiyaa hiree argadhee as dhufuu kiyyaaf duraan dursee isaanii fi kabajama maqaa ummata keenyaa maqaa ummata Oromootiin isaanillee galatoonfachuu barbaada. Kanatti aansee rakkoo amma jiru wal qabatee rakkoo siyaasaa biyya keenyaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa rakkoo siyaasaa Oromoo rakkoo siyaasaa Somaalee gabrummaa ummanni sabaaf sallammiin Itoophiyaa gosti 83 fi achii ol jedhameetiin tilmaamama. Kuni keessatti hirmaatu irratti yaada amma ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa artistii keenna goota keenna bulchaa keenna beekaa keenna hoogganaa keenna ka ta'e Hacaaluu Hundeessaa kadhabnee sanirratti hireenaa kennanii miidiyaa kanarratti dhufee afaan Somaaleetii fi afaan Oromootiin haasaa xiqqoo takka dabarfadhe duraan dursee hireenaa kennaniif jecha anillee akka isaan itti hireenaa kennanitti akka isaan itti miidiyaa kanarratti hireenaa kennanitti duraan dursee afaan isaaniitiin gartee gaafii tokko tokko obboleessa kiyya wajjin gaafii tokko tokko obboleessa kiyya Nuur waliin gaafii tokko tokko godhaa turre amma ammoo afaan Oromootiin nu dabarsii jedhanii afaan Oromootiin illee dabarsuun dirqama eenyummaa kiyyatu Oromoodha akeeka kiyyatu Oromoodha qabsoo keessa turre qabsoo irratti waan guddaa taane as geenne alhamdulillah homaa miti. Of duratti immoo keessaa baanaa kanaa jecha wanni qabsaa'anni kufaa qabsoon itti fufa. Kadu'e karaa qabdee bakka dandeettetti awwaaluyyuu hin dandeettu bakka dandeettetti ni awwaalattaa kun heera qabsooti. Akeeka qabsoon ittiin namaan deemu qabsoo akka isiin gaafii nama gaafattetti deebisaniif. Kanaafi ajjecha Hacaaluu irratti hirkataniiti isaanillee quuqama qaban quuqama gartee uummata Oromootii qaban irratti miidiyaa hireenuu kennanii asit dhufne isaan haa galatoomanii kanatti aansee wanni afaan Somaaleetiin dabarfataa turre Hacaaluun akkamitti du'e Hacaaluu eenyutu ajjeese Hacaaluun ammoo qabsoo Oromoo keessatti qoonni inni kaminni Hacaaluu qoonni inni qabsoo ummata Oromoo keessatti qabu qabsoo sabaaf sallammii Itoophiyaa mirga sabaaf sallammii Itoophiyaa nama gaafatu ture Hacaaluu Hundeessaa kuni ummata Oromootiif wanni himan jira jedheetiin hin yaadu yoo ilma dhalatee osoo hin dhalatin garaa jiru ta'e malee ka lafa jiru ka waggaa shanillee hin beeka kanaafi amma gabaabamatti ka itti aanu ummanni Oromoo maal godhuu qaba qabsoon tun akkami kararraa gorte akkitti kararraa gorte isinuu ka beeytanii waan afaan Somaalee haasa'e keessa deemee hin babal'isu kanarraan ammoo Abiyyi maaliif kararraa gore eega kararraa gore ammoo akkamitti siyaasaan biyya sanii deemaa jira yeroo hundaa yeroo duraa hoggaa amaanaan itti kennamu akkamitti itti kenname ka jedhu akka itti kenname akka filannootii kan namni hunduu beeku kanaaf isaa wajjin sorry wanna teeknikaa kan qunnameef dhiifama kanatti aansee okay eega gartee Hacaaluun du'e wanni kaleessa tahame oo maali ka isaan nagaafatanii wanni kalee tahame akkuma numarti beeynutti tokkoffaa Hacaaluu handhuura Oromiyaatti Hacaaluu ilma Oromooti Amboo jiraa dhufe gara handhuura Finfinnee reeffa isaa wanni ammoo Amboo geessinuuf hin jiru akka Oromoo tokkootitti ilaalchi kiyya sanii wanni inni qabsaa tureef uummata Oromooti sabaaf sallammii Itoophiyaati bakki inni itti qabsaa'e handhuura biyyattii magaalaa Finfinnee ka sabaaf sallammii ka taate keessatti ka qabsaa ture achi keessa qabsaa ture Finfinneef qabsaa ture wanni reeffi Amboo dhaquuf hin jiru biyya teennaa biyya abbaa keennaati achitti awwaalannaa dhagaafin kennaa akkuma isin beektan boodarra Jawaar gartee akka makiinaan hin deemne dhogge galma gartee aadaa fi giddugala Oromiyaa keessatti achitti walitti qabamanii akka gartee gabaasni hordofaa turreetti akka nama Oromoo tokkotti kanatti aansee achi boodaan irreedhaan gartee mootummaan Itoophiyaa yeroo hundaa firiidamii namni gaafatuu fi mirgaa fi waa'ee siyaasaa yoo ati gaafattu kan dhalatinii fi kan dhalatillee ka beekuu qabu deebiin isaa rasaasa deebii biraan kennanii akkuma beekan oo beekan dalaganii qawweedhaan gartee irree garsiifatuu barbaadanii sanirrattillee nu torta dura sodaanneen dhalanne sodaanilleen qabsoofnee takka gootummaa keennaan qabsaa jirra eenyummaa keennaan
hanga gatti mul'atu tana argataa jirra sanirraa waan taame quba qabdanii waan akkasiitii waan kana jirra nu hordofa yoo ammoo waan haasoyne keessatti dogoggora jiraate ammoo nu hoffolcha dogoggora ammoo walirra laalla jedheetiin hin yaadu wanni kana goone firee argannetti fayyadamnee miidiyaa waraana miidiyaa jechuun gaachena miidiyaa jechuun irreedha irree jiru kanarratti puush gooneetiin namicha kana ofirraa buusuu qabna akee kana fixanyaa kana ofirraa jijjiiruu qabna yoo akeeni kun hin jijjiiramne balbala nama maraa dhaqa wanni arra hacaalutti kaleessa dhufe kun arrallee du'aa jirra kaleellee du'aa jirra borullee ni duuna kana beekuu qaba uummanni Oromoo haga gartee bilisummaa ta'e nagoonfannutti ammoo ni bilisoomna shakkii takka hin qabnu gaa eenyutu bilisummaa fidaa fi eenyutu irra jiraata san ka beeku rabbi tokkocha qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa borduun malla sa'aatii kana booda yoo asii ba'e sa'a tokko booda nu du'uu danda'a wanni gartee responsibilitiin qabnu hin jiru sodaaf jecha garuu ol deebinee sagalee ummata keenyaa ta'uu hin dhabnu akkanaan hordofaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتاس ان برنامجka ku joojino waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaanba qoomiyada oromada oo runtii uu nin adag oo ay aad ugu faanaan isla markaasina lejan ahaa oo halgankii heriyada gumaysiga la iskaga dulqaadayay qayb weyn ka soo qaatay haatan lafteedana dulmidiid ahaa oo aad u diidana maaragtay dulmiga iyo marin habaabinta xukuumadda abi lagu eedeynayo kamid ahaa sidoo kalena kamid ahaa maaragtay ragga ugu codka dheer ee Ethiopia oo dhan marka la yiraahdo ugu codka dheer kamid ahaa runtii geeridiisu waxay taabatay malaayiin qof waxaan leenahay ilaahay isagana ha u naxariisto samir iyo iimaan waan kugu soo celin marka samir iyo iimaan Allah idinka wada siiyo qoomiyadda Oromada ee halkan naga xidhan ee maaragtay laga yaabo inay in badan oo kamid af Soomaaliga ay fahmayaan ama ay garanayaan si gaar ah idinku tacsiyeynaa samir iyo iimaan Allah idinka siiyo xuquuqdiina laakiin in maaragtay hajaal una dhinto jawhar iyo ragii kale madaxda aan xabsi lagu guro runtii waa arrin aan la aqbali karin marka xuquuqdiina ka dagaalama ayaan idin leenahay waxaan ku celinayaa Umar balsi uu maaragtay fariinta ugu dambaysa ugu soo gabagabeeyay dadka walaalaha Soomaalida baan maaragtay aad baad u maasantihiin muddo oo fursadan aad siiseen oo dareenkii iyo maaragtay wixii oo gacanta ay maaragtay Ethiopia aan ku jirno mar walba maaragtay dhimashada nagama foga tii Ilaahay waa hageed waxaan weydiinay freedom waxa kale ma weydiinin abiy wadankaas ku dhasho anaga maaragtay lana soo korinin wadan kale kamaan imanin wadanka waan ku dhalanay wadanku anaga dhan uu noo dhaheeyaa Soomaalida waxa leeyahay shalay waxaad muujiseen aad iyo aad baad u maasantihiin wixii dibadda jooga iyo wixii maaragtay wadankooda hooyo ay joogaanba aad iyo aad baad u maasantihiin laga yaabaa mudaaraadku horta dhinacaas waxa oo social media-ga aan ka arkay ina dareenkooda ay muujiyeen kali baan ka arkay mudaaraad baa ka socon kara qoomiyada oo Soomaalida laga yaabaa mudaaraad dumarku jiro jawaabta dawladda Ethiopia waa habad waa harig saddex shay baa ku banaan oo dawladda ururkooda haddaad taageeri waydid saddex shay baa ku banaan bari waxay noqon doonta Allah og maanta iyo shalay waxa ku banaan saddex shay saddexdaa shay waxa waaye habsi ina lagu dilo inaad wadanka ka artid saddexdaa wax ka sokeeya male siyaasadda Ethiopia insha Allah waan ka bedelanaa saas waan ka bedelanaa ilaahay baa nala qaban doona garabkii aan siiseen aad iyo aad baad u maasantihiin horta waxaan nii sheegi rabaa anuu Oromaan ka dhashay Oromaan aha qoomiyada Oromo oo meel la yaqaano Baale wadankii uu ku dhashay jireen alwaaqo guutu aan ka soo jeedaa haddii aan af Soomaaliga hoogaa oo wax ka sahi waayana oo aad raali gelinaysiin af Soomaaliga ninka ku dhashay baa aqoonin anoo barad iska dhaaf marka dadka walaalaheena oo dhalinyarta walaalahay oo garab siiyeen oo dhalinyartii oo shalay ay muujiyeen qeyro iyo dhalinyarta oo Soomaalida qoomiyada Soomaalida ay ka soo jeedaan midnimadii ay iyagu muujiyeen aad maaragtay maanta taasaas muujiseen aad iyo aad baad u maasantihiin talabaad waxaan ka hadli rabaa dawladda weli iman doonto iyo kii shalay tagaba uu ka shaqeynayaa midnimada Soomaalida iyo Oromada inuu dumiyo taas waa habeen halay tage ku guuleysan maayaan taa waxa ku waqiijinayso darisnimada Oromada iyo Soomaalida Ilaahay baa ku talagalay ma aha waxaan anagu dooranay hadda waxaad fiirisaa Tigreega nala daris ma anaga Tigreeg waxa ka soo higa habashi waxa ka higa Tigreeg Oromo iyo Soomaali anu waxaan ka qaataa qof hal guri degan amal aan ka soo qaataa waayo
markii waaqoo guutu iyo abashi ka arareen waan kugu dheeraanaa soo waa diga raalli noqoni waaqoo guutu iyo markay halgameen oo maaragtay diiditaanka ay muujiyeen oo dowladda amhaarka ay ka arareen waddanka gaari lama raacay mogta faras baa lagu tagay ilaa hadduu huduudda oo soomaaliya faras baa lagu tagay lug baa lagu tagay ka bacdi maxaa dhacday ina salli siyaasadeed la weydiiyo oo hukunkii meesha jooga waddan walba sharci uu leeyahay shacab buu leeyahay shacabkaas haddii ku raaligelinin wixii waddanka ka taliya haddii ku raaligelinin meelaad aga dhiganaysid male siyaasadda waxa ugu muhiimsan inta ilaahay ka sokaysay doodda inaad muujisi waa aragnimo siyaasadda waxa ugu muhiimsan meelaad aga dhigatid oo dadkaaga u halgantid ilaa waddanka ma joogi kartid marka se u socdeen maxamed ziyaad barre bay weydiiyeen horta labayo konton waddan buu ahaa barigaas africa meel walba waa laga diiday maxamed ziyaad barraa la weydiistay maxamed ziyaad barre uu muujiyey soomaalinimo iyo oromo waxay isku yihiin baad iniguna maanta muujisay moogta ya marka dambe alla weydiiyey meel uu siiyey meel weyn marka dambe dee markaad joogtid mucaarad dad qaarna magaalay joogaan qaarna buurtay ka dagaalamayaan dhalinyartaa la tababaray markii la tababaray oo tababaraas ay qalan jabiyeen oo suuqa soo galeen iyagoo darees wata shacabkii a arkay markaa iyagoo luqa kaley ku hadlaane sheekadii say u socoto baarlamaanka gaartay dad oo ciidan dhar ciidan oo gooni wata aa magaalada ka socdaa see wax u jiraan ilaah naaristo maxamed ziyaad baraa la weydiiyey uu yidhi iska dhaafa waa soomaali aboy soo had garata ma ciidankii la tababaray gudaha Soomaaliya lagu tababaray magaaladii soo galay magaaladii way joogeen ba markii hore luqada markay maqleen iyagoo badan sheekada aan ka dhaxgalay iyagoo badan oo luqada afroomada sheekanayaan bay maqleen Soomaalidii baa yaabtay dadkan maxay yihiin hagee ka socdaan markaasuu maxamed ziyaad barre yiri Soomaali aboy iska dhaafa horta darisnimo oo wax ka weyn noo dhaheeyo diinta muslimka ma fahanti ma karmaami doono ani oromo iyo Soomaali baa kala fogaanaysa mana ku seexdo mana ku toosayo ninkii dabadhilifka oo ka shaqeynaya inay Soomaali iyo oromo kala duminayo isaga daalaya meel uu ku haadhi doona waayo anaga onaheena saan isku dhownahay iyo waxa noo hiriira ilaahay baa ma aragtay og darisnimada oromada iyo Soomaalidana waxa ku tala galay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa ku tala galay wixii ilaahay ku tala galay id jabinaysa ma jirto marka waxaan farin diraya anagu inaan niyad jabin inaan albaabka u furin adawga soo socda Soomaali iyo oromo inuu isku jeediyo oo is dhameeyaan uu rabo mana dha'i doonto ma dha'i karto cumar aad u mahadsantahay waa saas uu sheegay dadka Soomaalida iyo dadka oromada waa dad walaala diin baa ka dhaxaysa oo dhul baa ka dhaxeeya oo dhaqan baa ka dhaxeeya oo maaragtay waa dad aan sinaba u kala maarmi karin marka sidaa daraadeed Soomaali iyo oromo way isaga dhow yihiin qoomiyadahan faraha badan ee dega geeska iyo gobolka Afrikaba waxaan inahaasan barnaamij ku soo gabagabaynaynaa dadka Soomaaliyeedna hala garab siiyo dadkaas walaalaheena ee oromada si walba oo lagu garab siin karo ha lagu garab siiyo haday noqoto af haday noqoto media iyo haday noqoto mudaharaadba ha lagu garab siiyo xaqu waa xaq inaga wada maqan sidaas daraadeed haddii maanta wiilka oromada la dilo berrika ku xigaya waa wiil Soomaaliyeed la dilayay ma aha oromada kaliya lagu ma joogsanay marka oromada iyo Soomaalidu waa dad walaalo oo Tigray iyo maaragtay axmaar isku direen sidaas daraadeed waxaan dadka Soomaalida waa inay ogaadaan cid walaalahooda inay garab siiyaan loo baahan yahay inay yihiin dadkaas oromada walaalaheena intaas barnaamijka ku gabagabaynaynaa xaqu ha guuleysto salaamu calaykum